السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن هبون إلى هانتي بميل كسوة شوكتان. كنا سودوا هذا ورئيس الجارة وهديه بدنا الله يلنا إنه وجميع حسب معارض كائن وضني حرصي على حاج حسن. إن هو جميع مركز كوبايد ونكاجم هذولين إن دوريس كان نجاق بشو أو تلفزيون كهون كي بالوقلية شو كسودوا تلفزيون كهون كي. وأنا بعد ما هتنتي وأنا دك فرح سنة رنتي إن يوري سنة بوجن سيدا يسوي ديسين ديار برانو. إن هو جميع بوجا الشيكتي أي أنت بدن ورئيس جن وكوساب سنانيا. سياسيين تو أنت بدن. مركز حلك كده جان بوج ما يقول شيء. ضرورة حرص على حاج حسن. بوجن مي إلى مدحتوي حيكون كلفي. وحيكون كلفي بوجن وأنا جهبين كيلو دافور كان الشيء وحنكون تلقى لي نمبر 1 إن تشابيو قرال كوان شعلا هبدا بني آدم كإلهي سيا فرح بدنه إكل الدون يعني لا أرجع إلا وقفك هبدا وتشابيو بل إنه صورة قلق هاي إن كريرة هذا حقول كرتو إن تشابيسو مرك الله بعد حفيز هذا بالشدة مركز كشقين يسوي ومدة حفيز أيلا ده وشقين يسوي وقت قاعد شوك تموي وقت قاعد كتكتو حدبوا من الحسنة يسا شغل هذه هوشة تكون حجرتي هول نوعها تاسونا وتوان صومالد أوبرن إن سياسيين توحقران وترى يربح حقري مركتانا وحن أتفحيتي وسكودي إن تاريخ دي اللي كان الشقيني دود كشقيني طبعا كيس النضود أما هنقطه 5 سنة يبدأ وزير يو شوف في كابينتها أما هنقطه إلى يو كوميشن كي اللي كان شوقي أما هنقطه حزب هذا معارضك وضني يو كل مية ومركم معارضكها أن شوقي حلي هذا كلا دوون aragtihii siyaasadeed ee wadanka yaalay iyo sida wuxuu arkay iyo dhacdooyinkii iga soo maray bal inaan qalinka u qaato si aan yani u eego u suurta geliyo in aan qoraal iyo qalin ku xardho dhacdooyinkii tagtadii ina soo martay sida dunida caanka ku tahay dadku markay xafiisyada joogaan waxay qoraan markay xafiisyada ka tagaan waxay qoraan waxa weeye xusuus qoro laga dhaxlo ayay qoraan wax dadkeena laga yaabo qaarkii inuu u qaato in dadku markuu weynaado waayeelo qoraan laakiin sida habeenka dhood ba sheegayay siyaasiyiinta kamid in Obama oo qoray buugii uu qoray ka hor intaanu madaxweynaha noqon uu ahaa waxa weeye senatorka ahaa Hillary Clinton iyo madaxweynaha u tartamaysay buugii Hargeisa qortay iyo boqolaal kale kala duwan baa qoray iyagoo daayar ama xafiiska joogay ama ka tagay qoray marka in aad qori karto oo suurta geliso markii aan qoraalkii dhex galayna waxay igu dhiirigeliyay bahdii qoraalka markii aan wareystay tusiyay bahdii qoraalkii aan la tashaday way igu dhiirigeliyay ilaa uu de u soo baxay buug banaanka u soo baxay oo iftiinka u soo baxay oo habeenkii dhaweyd 26kii waxa weeye Oktoobar la daafuray marka runtii saasa ii geysay buug qoristiisa miyiga ilaa madaxtooyada waa noloshii inta siyaasaddu waa intii ugu dambeysay waan ku joojiyay xilligii u dambeeyay tartanka sanadkii hore 2017 ama 2017 markii la tartamay ee aakhirkiina waxa weeye xisbiga uu ka haray doorashadii ayaa yani aan ku joojiyay waxaan ka soo bilaabay dhalashadeedii iyadoo aan ku daray waxa weeye taariikhdii ka horeysay maadaama aad qorayso meeshaad ka soo jeedo iyo qofka tahay wax muhiim ah dalkaagi iyo dadkaagi taariikhdiisii aad xusto oo gogoldhig uga dhigto marka gogoldhig baan uga dhigay oo ku bilaabay taariikh iyadoo anu buug taariikheedo hore aanan qoraynin oo aan qorayo buug xusuus qora oo aniga khuseeya marka waxaan ka soo bilaabay xilliga nacam in hogaamiye buugaaga waxaad soo bandhigtay oo aad furtay 26 Oktoobar waa sidoo kalena waxaad xilka wasiirka iska cashisay 26 Oktoobar sanadkii 2015 labada maalmood maxaa ka dhaxeeya xiriir waxba xiriir kama dhaxeeyaan way isku soo beegantay marka waa 3 sanadood baa laga joogaa marka xilka ka tagay marka 26kii Oktoobar 2015 ama 2015 yani xilka ka tagay waxaana ii suurta gashay inaan iminka waqtigiisa 3 sanadood marka ay laga joogo inaan buuga soo bandhigo marka wax soo kale kuma jiro in buugii suuqu galay wala soo akhristay waxa ka soo noqday feedback iyo hadal hayn badan hadal haynta ugu badan waxay ka taagan tahay warqad ama qayb kamid ah buugga oo aad ku sheegtay in madaxweynaha hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo markuu hal bil xilka hayay
ay subaxdii la soo hadashay marwadiisu oo ay arrin idiin sheegtay arrinkaas oo ah in madaxweynaha uu doonayo inuu iscasilo oo xusuustiisii ay hoos u dhacday arrintaa waad sii raaciso waxaad tidhi aniguna waan arkay oo madaxweynaha markaan wada shaqaynaynay in badan baan ku arkay in xusuustiisii hoos u dhacday bal sharax arrinkaa waxay u badan yihiin dadku su-aalaha iga weydiinaya ama iyagu iska weydiinaya dadaan akhriyeyne intuu bage ama loo koobigareeyey ama koobigaraystay ka warramaya buugguna waa wax ku dhow 400 bage haddaan u noqdo qodobka ah madaxweynaha iyo xilliga dhacdada buuggeyganu maaha buug novel maaha buug jacayl ka warramayana maaha buugna waa buug xusuus qora dhacdooyinkii taariikhdu ka warramaya marka dhacdooyinkii taariikhda ee aan soo joogay ee aan shaqaynayey iyo waxyaalihi aan la kulmay baan ka warramaya taariikhda iyo been lagama sheego taariikhda been lagama sheego dhacdooyinka taariikhda siday ahayd baa loo xusaa waa suurtagal inaad hulaab huweyso ama si adaab leh u dhigto waxaan isleeyahay sidii uga adaabta badnayd baan buuggayga u qoray inkasta oo aan ka sugayo dadka qoraaya intii ila eegtay mooye dadka kale qoraayada ahi wixii ay ka soo jeediyaan oo aan buugga ugu horreysiiyey markaan afeefta marinayay qof walba waxaan ka codsanayaa inuu si jeclala u akhriyo iina soo gudbiyo wixii uu qalad dareemo haddaan usoo noqdo su-aashaada ah madaxweynuhu xusuustiisi baa hoos u dhacday adiga macay bay kula tahay mise waa odhaha caadiya anigu waxaan u dhigay odhaha caadiya oo anigaaba de xusuusteyda hoos u dhacda anigaygu imika aniga konton jira ayaa xusuusteyda hoos u dhacda hoos u dhaca dad ciddii doonaysa inay silaanyo ama eedayso ama maagto anigu xaasha ujeedo maagiseedna ma qorin hadal qadafana ma qorin hadalkaygu waxa weeye uu ku saxan yahay marwada ila soo sheegtay waanu imi markii aanu imina wuxuu werwer ka muujiyey werwer buu ka muujiyey in xusuustiisu hoos u dhacday waxay muujinaysaa damiirka xalan aan silaanya ku tilmaamay ee ah inuu intuu werweray dalkiisii dib u werweray naftiisii markii hore u werweray bishii mala xusuustaadii baa hoos u dhacday kadibna dalkiisii buu werweray wuxuu damcay inuu xilka ka dego intaasaan isku xejiyey markii dambena wuu ka noqda marka waxa weeye xusuustiisii baa hoos u dhacay anigu maan odhan xusuus ma laha wuu xanuunsaday ma odhan qofkii ku odhanaye silaanyo u marmarsoonaya wuxuun ku yidhaahdaa anigu horena uma odhan iminkana odhan maaye waxaan tilmaamay oo buuggayga ku qoran oo ku xardhan hoos bay u dhacda qof walba markuu ama mashquulay weliba waxaan xusay laba shay marka mashquulku ku bato stressku baan weliba kelmadda ingiriisigaan geliyey bracket stressful marka uu yahay yani uu ku bato stresska iyo shaqada culayskeeda iyo cidhiirigeedu wuu ku kordhi jiray marka qofku waa yeelana wuu ku kordhaa asla labada shay waa laba shay jira anigan waayeelka halkaasa gaadhin mar kastoo shaqadii culaysku igu bato yani waxa dhacday in xusuustayda hoos u dhacdo waxaad bale igu dhacday inan xoghayna magaceedii soo saari waayo ka hor inta magaceed muxuu ahaa intaan sooba saari waayo marka way dhacdaa qofku markay hawshu ku badan tahay tilmaanta noocaasa shaqadii iyo culayskii badnaa oo aan ka soo sheekeeyey waxa weye cutubka bilowgiisii shaqadii marka la wareegnay xafiiska dhibaatadiisii hawshii taagnayd culayskii kale anagoo aanu bilownay ee shaqadii yani ilaa yani 10kii shay ahaa ololaha noogu jiray hore yani 100kii cisho horeeyey culaysyo badan baa isaga kaaya daba tegey marka culays jiray buu ahaa shaqo xusuusta hoos ku dhacna percentage anigu maan odhan 100% bay hoos u dhacday 10% bay hoos u dhacday laakiinse waxaan muujiyey dareenka noocaas inuu ku soo kordhay la iguna yeedhay markii dambana uu ka noqdo aanay waxba dhicin buugga waxaa ku jirtaa in madaxweynaha lagu qanciyey inaanu ka noqon inuu iscasilaada ka noqdo dadka ku qanciyey iyay ahaayeen adigu sama ka mid ahayd waxaan ku qoray buugga sida ku qoran waxa isaga iyo qoyskiisu iyagoo ku qancay inuu joogabaan oo aanu iscasilin ayuu banaanka noogu soo baxay marka wax doodiba markaa kamay furayn already wuu ku qancay inuu ka noqdo marka dee ismuu casilini haddaan ku imika caanu hebeliyisri cab dee caanamaad cabin ismuu casilinoo marka qofku iscasilalayaa ka noqe waxay ahayd
dood isaga iyo marwadiisii dhex martay oo waxa weeye uu u soo bandhigay inta iga soo gaadhay wixii u horreeyey ma ogeyn inta aniga soo gaadhay doodii noocaas ahaydna banaanka waxay soo baxday markaa aniga naloo sheegay markii naloo sheegayna dee isagoo ka noqday baan nuuni hogaamiye buuggaaga waxaad ku qortay markii ay socdeen kala guurkii dowladdii daahriyaale iyo tii axmed silaaniyo waxaan ku dadaalayay inaan madaxweynaha usii sheego kulamada ka hor cidda u imanaysa iyo waxay kala hadlayaan si uu qoraal usii diyaarsado sidoo kalena aan xusuusiyo wixii uu ilaawey maadaama madaxweynaha ay xusuustiisii aada sheegtay inuu waraaqa diyaarsanayo hoos oo aad xasuusinaysay dadka uu soo magacaabayo ee xilalka u dhiibayo yaa u sheegi jiray ma isagaa soo xulan jiray siday ahaayeen arrimahaas aniga shaqadii wasiirka madaxtooyadan ahaa tiimka madaxtooyada joogan qofkii uu madaxda ahaan ahaa shaqadayday ahayd inaan u diyaariyo cidda u imanaysa waxay kala hadlayaan qoraalada wixii markaa yani aanu xasuusnayn hebel iyo hebel baa arrintaa hore kuugu yimi ama iminka ina doonaya ama arrin dhacdo aan xusuusiyo u sheego marka shaqadayday ahayd inaan ama u sheego oo wargeliyo ama arrin horaanu soo maray xasuusiyo marka may ahayn wax xusuusta gaar oo ugu tacalluqee waxay ahayd shaqadayda inaan mar walba waxa weeye wixii shaqaa ee ku soo kordha ee xafiiska ee madaxweynaha iyo hawshiisa iyo diyaarintiisa inaan ka caawiyo wixii xafiiska shaqadiisa ah dee wuxuu ii igmadayba marka cid kastoo madaxweynuhu la kulmayo ma qoraal buu ayuu ugu jawaabi jiray maan qorin sidaa laakiinse wuu diyaarsan jiray wuu ka diyaar garoobi jiray silaanya wuxuu ahaan jiray ninkii garanaya markuu mucaaridka markuu muxaafidka ahaba diyari buu lahaa buug uu ku qorta buu lahaan jiray marka buuggiisii kusii qoran jiray waxaana laga yaaba marka dhacdooyinka o dhan in laga helo buuggiisii uu ku qoran jiray dee muddo badan baad xukuumadda ka tirsaneedoo 5 sana shantaa sane arrimahan maad sheegin labadii sane ka dambeeyeyna maad sheegin maxaa keenay inaad maanta buuggaaga xusuus qorkaa aad ku qorto madaxweyne silaanyo xusuustiisa hoos bay u dhacday dee waxaan u arkaa inaanan qaldanayn aan sheegay madaxweynaha integritygiisa iyo sharaftiisa oo ay ammaan u tahay oo aan ku ammaanayay inuu sharaftiisa iyo ilaalinayay ta dadkiisaba waxaa la yidhahdaa qofka yani ka kursiga isku dhajiya ee dadka ku laaya ee ku dhiba ee diida inuu ka dego lakiinse qofka yidhaahda war madaxa xanuunayo waan iskaga tegaya shaqada ma sharaf bay u tahay mise waxay u tahay mise qalad bay ku tahay waxay u muuqanaysaa qof damiirkiisu xalan yahay marka tacbiirkan cabiraya kaasoo kulaha manaan intii ujeedalebaa intaa ka soo cugataye waxaan kaga hadlay buuggan ilaa 8 meelood baan kaga hadlay haddaad baadho 8 meeloodaan kaga hadlay waxaan ka hadlay yani waxaa laga yaaba inay qof un halkaa kaga dhegan tahay waxaan ka hadlay 8 meelood hibeyntan ku bilaabay waa qofkaan u hibeeyey yani waa qofkii siyaasadda igu gacan qabtay uga mahad celiyey hibeynta buugga waa taqaanaa cidda ugu qadarinta badan buu qofku ku qoraa adeerka waalidka iyo xaaska iyo carruurta ay ku qoraan dadku inkastoo aan jabtarada ku qoray waalidkay ku qoray xaasaskaygaba ku qoray waxaan u hibeeyey buugga gebigiisaba jiilka dhallinyarada ah iyo madaxweyne silaanyo oo siyaasadda igu soo gacan qabtay saasuu qoran yahay waxaan ku xigsiiyey taariikhdiisii hore yani aan maqlay ama aan kala sheekaystay ee ay ka mid ahayd inuu waxa weeye keenay hal abuurkii iskaa waxu qabso isaga iyo ninka le blarafl oo fulinta lahaa oo isaguna shaqaynayo ahaa nin gobollada ka shaqaynaya inuu ahaa ciddii keentay hal abuurkii iskaa waxu qabso loolan jiray xilligii dowladda soomaaliya wasiirka ka ahaa waxaan ku xusay yani hogaamiye hal abuur labaad markaa tilmaamaya waxaan ku xusay inuu ahaa hogaamiye cutubka 13aad ayaan ku xusay hogaamiye hal adag ayaan tilmaamaya oo aan ka soo sheekaynaya waxaan ku xusay shaksiyaddiisa waan leeyahay wuxuu ahaa styleka ama hanaankiisa hogaamineed waxaa nin dimuqraadi oo dadka dhegeysta taladana ka isugu dhow yihiin iyo ka uu saaxiibka leeyahay aan qaadanay ra'yiga qaata ka u arko inuu sawaab yahay waxaan ku xusay hogaamiye inuu yahay naxariis badan hogaamiye naxariis badan inuu ahaa oo mararka dhacdada aan soo qaday ka mid ahayd inuu guriga ugu tegey maxamed iskeerse oo ahaa xisbigiisa xogayihii maaliyadda oo uu ku soo booqday kadibna ay farxad isu bedeshay cadhadii ay kala cadhaysnaayeen yani maxaa dowladda laigu dari waaye wax lamida oo ay ahayd dhacdo cusub madaxweyne guriga ku booqda saaxiibadii
oo markii dabana $50,000 dhakhtar ugu daray isagoo xanuunsanaya ayaan ku xusay naxariistiisii iyo dabaqiisii waxaan ku xusay hogaamiye diblomaasiga u adaa badan oo aad iyo aad si waxa weeyaan yani marka laga hadlayo diblomaasiga si aad u qurux badan oo hanaansan u gudbiya markaan ka hadlayay markuu Mala Zanaawi la kulmayay Ethiopia oo kala hadlaya qadiyada kilinka shanaad sida uu u dhigay baan ayaan sharaxay si aad u qurux badan oo adaa badan oo isdhowr badan ku jiro oo yani tacliin aan tusayo cidii ka baranaysa ka barato anuna aan kaga dayn karo waxaan ku xusay waana kula haladayga diidmadii Cameroon ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo yiri shirban ku cusub ka soo qayb gal oo madaxweynihii koobaad ee Somaliland ee Downing Street number 10 lagu casuumo guriga looga taliyo dowladda Ingiriiska oo heerka gaadha ama ay la kulmaan madax inta leegi la kulmaan oo aan soo taxay madaxdii la kulantay madaxweynaha oo dhan Cameroon oo doonayay inuu shirkii Soomaaliya loogu qabtay London inuu ka qayb galo 2013 inuu ka qayb galo madaxweynaha la doonayay ganafku ku dhufto uu diiday madaxweynuhu iyadoo xaalad nagu adag waliba ah haladaygiisii waan tilmaamay waliba waxaan tilmaamay inuu salaadii subax dabadeedii anigoo markaa wax tukaday cabaar yar joogay ila soo hadlay oo uu ii sheegay go'aankaas aan qaatay waan ku wargelinaya ragii kalena ku wargeliyay ugu raaco dadkii ku wargeli wax anagoo xalay ku kala seexanay dood haddana uu soo go'aankii qaatay igu wargeliyay hogaamiye daacada ayaan ku xusay oo marka aan leeyahay waxa kulmeen dawladda Soomaaliya kulamadii wada hadallada Sheekh Shariif bay ku kulmeen London oo wuxuu soo jeediyay kursigaygan ku fadhiiso oo aan kaaga dago kaagana cid doonto u dhiibo madaxweynuhu wuxuu ugu jawaabay waan xusayo adeer arrintu sidaa uma hawl yara dadkii doortay baan ku qanacsanayn arrinta marka hogaamiye u daacada dalkiisa intaas oo meelood ayaan 8 meelood kaga xusay marba nooc u dhigay markaan xusayo in stresska iyo shaqada iyo culaysku ku badnaa oo xusuustiisu hoos u dhacdo qofkii wax ka deeyay isagu si xun u dhigaya waxaan xasuustay Hadraawi baa Siyaad Barre u yimi oo markaas uu ku yiri hadalka maxaad caynka u tarwi hadalka caynkaas u tarmisiyo hadalku waa margiyo mid baa loo kiciyo waar margi ma uga jeedaad ka lahayd ma madaxweyne uga jeedo kama lahayn hadalka margiyo marba dac loo duwa bal tusaale keen buu inuu margi yahay wuxuu keenay Hadraawi saa ka sheekeeyay waa sheeko caana wuxuu keenay sheekada oran jirtay waxa weeye tawradu waa dhab madaxweyne maxaad u taqaanaa tawradu waa dhab hees lagu heeso kadibna wuxuu yiri tawradu waa dhab waa inay dhabtay tawradu bay xaqiijinaysaa haddii af Soomaaliga xagga kale laga rogo buu tawradu waa dhab waa qabqabasho waa dhab oo qabqabanaysa marka tawradu gabigeeda wax kale ka shaqeynaysa dadkii qabqabanaysa bay noqonaysaa marka hadalka qofkii doonayay inuu si kale u rogo qaldan isagay taala laakiin waa qoraal dhiganahan ku qoran oo maguurta ah ujeedadan kala ahaana waan sheegay dadka fasiri kare ee ka hadli karaan waa dadka qoraaga baa oran karo fasiri karo oo waan ku qoray buuga qofkii qalad ka helo soo sheeg maaha kitaabkanu ama buuganu maaha macsuum yani wixii aan qoray inaan qaldami karin maaha laakiin se qof iska qaylqayliyo oo meelaha ka qaylqayliya maaha wax yani ictibaar iyo eegma leh waxa macna leh qofkii si cilmi leh oo qoraalka yaqaana u sheega oo uga warama oo uga hadla waxa aan kugu soo gabagabeynaya imaamu Shaafici iyo kitaab la weydiiyay rasuulku tilmaamaa in dhowr iyo 30 jeer lagu dul akhriyo kitaabka mar walbana uu qalad ka helay marka maqaaladiisi wuxuu yiri ilaahay wuu diiday aballahu waxa weeye yani ilaahay wuu diiday in yani kitaab kali yiraahdo waan saxanay kitaabka ilaahay mooy saasoo kale oo kama qaad kitaabka ilaahay un baa saxan kitaab walba oo la qoraa ama buug walba oo la qoraa waxa weeye waa laga helaa qalad laakiin anigu qalad halkan kumaanaan qorin kumana ogi hadday dhacdo in wax qaldan lagu sheego oo dadka qoraaga ay wax qaldan lagu sheego oo soo baxa dib baan u eegay san ku tilmaamay daabacday hogaamiye waxa jira oo buugaaga isna ku xustay oo isla arintan la sii xidhiidha marwada madaxweynaha hore Aamin Waris ayaa tiri intii hore caafimaadka odayga ixtiraam baan soo haynay laakiin labadii sano u dambeeyay talada wadanka way ku soo dhawaatay waxaad uga jeedaa sidee ugu soo dhawaatay ma waxaad uga jeedaa booskii aad banaysay iyo dadkii ku bedelay
ayaa loo aamini waayey ma awood bal halkaa sharax marwada anigu waan ku ammaanay waxaan ku tilmaamay gabadh wax baratay ninkeedana ka dambaysa aada ula shaqaysa ilaalisa caafimaadkiisa annagana aada noogu ixtiraamta shaqada soo sidaa maan qorin labadii sane u dambeeyey waxaa muuqatay inay ku soo dhawaatay tale dee taladii ninkeeday kusoo dhawaatay ninkeeda gabadh waliba way la talisaa markaad la joogto gabadh waliba waxaa laga yaabaa deme intaad cusub tahay inay haweenku had iyo jeeraale inaanay inay yani isu timaadaan oo yani kaala soo qayb gasho in laga yaabo da la kala qajiro laakiinse mar kastoo dadku isdhex galo dee wuxuu isaga soo dhawaadaa talada intii marka inay ninkeeda taladeeda kusoo dhawaato ka ag dhawaataa oo la talisaa dee waa waxay u wada joogaanoo may ahayn wax ka baxsan manaan tilmaamin talo intay xafiiska fadhiisatay ay xafiiska la wareegtay qofkii de isagu tilmaamaya anigu dee taamaan tilmaamin idinku intii aad madaxtooyada joogtay wax dhinaca awoodda ku saabsan oo marwadeeda dhex maray waxaaba hadalkii ku qoran ixtiraam badan bay yani noo haysay si ixtiraam lay noola shaqayn jirtay marka dee hadalkii oo qoran baaba ku qoran ba bejka ka eeg isagoo qoran buu ku qoran yahay waxaa jira dee xanta arrimaha caafimaadka madaxweynaha la xidhiidhaa muddo badan bay taagnayd hadda buugga xirsuun baa lagu arko dee lagu qora haddii qoyska madaxweyne siilaanyo iyo mas-uuliyiintii kale ee xukuumadda la soo shaqeeyey arrinkaa ay beeniyaan oo yidhahdaan madaxweynaha xusuustiisu hoos uma dhicin aduu maxaad isku difaacaysa si anigu miyaan difaac iyo weerarba ma nihin iyaguna way la joogaan waan la joogaan waxaan ogaa un baan sheegay waxaan ogaa aan sheegay maaha wuu xanuunsanayay iminka adiga adaa xanuun baad ku sheegaysahay anigu wuu xanuunsanayay marka afka kama soo bixin iminkana ka helimaysa laakiinse xusuusta bini aadamku yani hoos u dhacda mar kastoo qofka da'diisu kordho mar kasta oo shaqadu ku badato hoos u dhaca percentageka ay doonto ha noqotee hoos u dhac ku yimi waan tilmaamo tilmaanta noocaasina waa tilmaan sax laakiinse haddii cidi beeniso dee yaday u taallaa haddii madaxweynehan intaa kaga tagno wasiirkii madaxtooyada markaad ahayd buuggaaga waxaad ku qorta in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii cabdiraxmaan saylici haatana madaxweyne ku-xigeenka somalilan isku xidhkoodii aada ku guuldaraysatay qodobadii aad ugu guuldaraysatayna waad sheegtay waxaa ka mid a waxyaabaad xustay in maalin maalmaha ka mid a madaxweyne silaanya uu damcay in golihiisa wasiirada uu isku shaandhayn ku sameeyo arrintaana aad u gudbiso aad la wadaagtay madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenkuna uu arrinkaa uu u cuntami waayo uu qawaday waad ku qancin kara weyday markaa aad madaxweyne ku-xigeenka aad ku qancinaysay inuu aqbalo isku shaandhaynta madaxweynuhu samaynayo labadooda xafiis way iska soo horjeedeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa miyuu u geli kara waayey wax wada shaqayni kamay dhexeyn miya maxaa sababay waxaad sheegtay inaan idhi kumaan guulaysan isku xidhkoodii oo marar badan baa khilaaf soo baxa anaaba isdhaliilay markaan ka hadlayo madaxweyne ku-xigeenkana waxaan idhi waxaan uga warrama dee inaan madaxweyne ku-xigeenka de wasiirkii madaxtooyadan ahaayo inaan u warramo marka madaxweynuhu joogay be madaxweyne ku-xigeenku de wasiiradoodii baana madaxweyne ku-xigeenku waa level madaxweyne wasiirkiisii baana ha noqdoba madaxweynaha rasmiga ah dee abhoond gareeyey ama aan dhul boodiya madaxweynaha laakiinse madaxweyne ku-xigeenku waa haymaladii iyo haybadii madaxweynu jooga marka inaan u warramo iyo inuu i waraysto iyo inaanu war isweydaarsanaa dee shaqadaydi dheeligaa bay ahayd laakiin marka madaxweynuhu isku shaandhaynta uu samaynayo adiga kuu sheegayo yaanu madaxweyne ku-xigeenka laga qarinayo adigu arrinkaas meena awood halkaas ka dee waaba laga qariyaba kuma odhan waa madaxweynuhu markuu wax magacaabayo madaxweyne ku-xigeen iyo cid kale toona lama le waa awood dastuuriya isagu leeyahy aniguna lamaan lahayn madaxweyne ku-xigeenkuna lama lahayn waa awood dastuuriya isagu leeyahy aniguna waxaan ku ogaadaa waa markuu dee lagu sheegay soo qor marka layaa soo qoro soo diyaari haddaad istiraahdo u kala wardawardeeyo u sheeg wixii xog iyo wara oo isku soo dhaweey waxaan sheegay inaan isri arrin noocaasa yaan lagu kala fogaana isu soo yaro dhaweey aan ku guuldaraystay isku day anigu aan la imiyo mubaadaro anigu aan isku dayey aan ku guuldaraystay baan sheegay marka dee wax ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isku khilaafeen oo ahayd way isu geli waayeen meeshaba kuma taal kumanaan qorin marka madaxweynuhu ku leeyahay soo qor ma siduu ku leeyahay soo qor sow xafiiska waraaqaha ka baxay oo dhan wasiirka madaxtooyada ma iyo diyaarinteedii iyo
inamadii inaan ugu yeedho iyo inaan akhriyo intaan waraaqo dibadda u bixin eega iyo inaan sharci yaqaan haddii loo baahan yahay qodobo loo cuskanaya iyo soo ma ahayn qofkii xafiiska joogay wasiirka wahay wasaaraddan anigu beerare kama shaqaynaynin iyo bariis la beero maaliyadda kamaan shaqaynay dee siyaasad baan ka shaqaynayay siyaasadda madaxweyne xafiiskiisa ka shaqaynayay wax kale ka shaqaynay hogaamiye waad mahadsan tahay qodobka 14aad ee dastuurka Soomaaliland waxa ku qoran xeer ciqaabeed iyo qofka sirta xukuumadda uu markaa ka tirsan yahay faafiya in la ciqaabayo waxaad sheegtay sir ma aragtaa asraarta waa la yaqaana dhacdooyinkii asraartuna waa kala gaar waxaan anigu ka warramay waa dhacdooyin iyo kulamo dowladdii anigu aan ka tirsanaan iminka dowladdii aan ka tirsanaan ma joogto waa taariikh bugaygun taariikhdaasuu ka warramaya iyo dhacdooyinka taariikhda laakiin wax siri kuma jirto wax siri kuma jiro tusaale waxa tidhi iyadoo la go'aaminayo shirkii golaha wasiirada waxaa 2010kii onolaf baa ka soo degtay galbeedka annagoo arrinkii qaadaa dhigana waxa noo yimi Nuux Taani oo taliyay ciidanka qaranka ahaa wuxuu noo sheegay in maxamed cismaan xuruun oo taliyay ciidanka qaranka ee aaga galbeed ahaa uu gacan siiyay ciidamadii onolaf isla markaasna arrinkaa loo baahan yahay in tallaabo la qaado arrinkaasi miyaanu sir ahayn ciidamada Soomaaliland iyo waxyaabaha golaha lagu go'aaminay warkaas inuu yimi anagoo waqti yar joognay oo dhacdo noocaas ah 43 cisho markaan dalka joognay ee talada dalka madaxweynuhu joogaan aan xukuumad ahaan jiray ay arrintan u dhacda qaarnaanta markay soo dhacdeen waa la isu yimi kadibna waa laga howlgala waa dhacdo la soo dhaafayo aan ciidamada tilmaamin sir waxa la yahay ciidamada hubkooda iyo saanadooda iyo tababarkooda iyo shaqadooda howlgal maaha balki yani gudihiisa la tilmaamayo ashqaas baa la tilmaamaya qof qoonsaday oo ka riboodiyay oo ribood ama tuun ha ahaado ama wax cad ha hayo labadaba imika waa laba jana tuun noocaas oo kale ku tuumay ayaan sheegay tuunkii oo wasiirka daakhilugu buriyay oo yidhi arrintii ma dhicin ayaan haddana sheegay marka dee dhacdo noocaas soo jirtay oo asraariba ma jirin arrin tuhunahoo aynkaasoo kala dhacdo laakiinse isku dhac keeni gaadhay iyo clash keeni gaadhay ayaa sawira in yani khalad la kala fahmo laakiinse wax siraba kuma jiraan haddii dadka qaarba dhinac iska taagaya dadka qaar baa le dee sir buu faafiyey oo qodobo badan cuskanaya haddii ay dhacdaba oo la yidhaahdo Xirsi Cali Xaaji Xasan sirtii qaranku faafiyey waxyaabo lagu heshiiyey faafiyey adigu diyaar ma u tahay haddii sharciga laga soo hore anigu diyaar baan ugu baaban qoro ku qoray anigu diyaar baan 100% laakiinse waxaas hadday dhacaan lama wariyo cid iminka tan ka soo hadashay ma jirto adigu haddaad soo akhriday waxaad ka akhriday weydii laakiinse hadday taas u dhacday waa iska mala awaaliyo sheeko aan markaa dee taagnayn sheeko asraara halkan kuma qoro horena waanu sheegay imkana waan ku sheegay asraartan waa la yaqaan waxyaaba buga ku jira hogaamiye waxa ka mid ah adigoo mahadsan ganacsadeena uu Saciid arrimo ku saabsan oo doorashooyinkana la xiriira waxa tidhi Cabdiraxmaan Ciro oo gudoomiyaha xisbiga wadaniga ahna musharriix xilligaasi ayaa waxa uu soo bandhigay in 20 milyan uu siinayo haddii uu Xirsi iska hortaaga xisbiga waanu ku biiray waa xilligaad xukuumadda iska cajisay aad xisbiyada doonaysa inaad ku biirto sidoo kalena lacag 5 milyan in Cabdiqaadir Jirde isna ugu ballan qaaday dad badan baa isweydiinaya gudoomiyaasha ama hogaamiyaasha xisbiga wadani haddii ogaayeen lacagta intaa leeg in ay socoto oo la isku baayacayo doorashada ka hor saameynna ay doorashada ku yeelanayso maxay u sheegi waayeen waxa horta fiican inaad weydiiso oo ka wariso yani anigu waxaan ka soo wariyay hadii jeer wixii buugga ku qoran quotation la geliyo cid baa laga wariyaa Cabdiraxmaan la soo hadlay Cabdiraxmaan oo la jooga uu ii sheegay xogtii oo raggii kale la joogay golaha ay ahayd ayaan soo sheegay Cabdiqaadir dawaabu jooga hadaad waraysato doonayso laakiinse marka laga yimaado taasi hadaa lacagta ogeydeen maxaa doorashada uga baqi weydeen dadar waan ogeynay in lacag haystaano taa iyo tuka badan ba haystaano dawladdan iyo dawlado kale taageeraya marka lacag kama aan baqayni waxaan ugu bareernay anagoo xisbi mucaarada ah oo waliba anigu aan powerkii dawladda intan ka imi u bareeray yaan ugu bareernay inaanu taa kula tartano waanagi signayba marka dee baqaas ugu ma jiray adiga ka baqlay commissionka ay ugu jirin waxaan u arkaynay inaanu
inaan iyagoo fadhiyo oo lacagtaa haysta la tartami karaya. commissionka ayaad qawadeen oo aad sheegtay inaanu daacad doorashadii ka ahayn uu wax musuqmaasuqay lacagaha iyo commissionka miyay soo gali karaan halkan kuma qoran laakiin sidee wixii aad iga weydiinayso wixii halkan ku qoran iga weydii commissionka halkan waxba kaga ma qorin miyaad iga maqashay buugga meed ku aragtay commissionka lacag la siinay maya yaana lagu baayacabane marka haddaad aniga haddaad weydiiso aniga kuu sheegay su'aal kale ku weydiinaya waxay tahay buuggaaga waad soo saartay waxa ka dhashay dhaliilo iyo guulo lagu soo jeediyay labadaba maxaad is leedahay maanta buuggaasi wax horumar uu ku sameeyay oo imika intii yar muddadii yareeda la jiray ka soo gaaray anigu waan ku faraxsanahay buugga inuu dadka qaarra dhaliilaan dadka qaarra ay taageeraan waana wixii aan suuqa u keenay iftiinka ugu soo saaray in dadka qaarra dhaliilaan dadka qaarra waxa weeyaan taageeraan laakiinse waxaa runtii qofka iska dhaliilaya aan arag ama waraaq loo sawiray badh loo dhiibay dee waa qofuun baalka la yihahdo loo dhiibay dee war loo dhiibay oo dadka warkaa ku hawlgalay qofka si akhriya ee ka faa'iidaysta ee eega ee dhugta ee ama qalad ka hela ama toosin u arka ama arrin yidhaahdo arrintaasu sidaa maaha oo xog khaldan ka hela dee xaq buu leeyahy waaban ku qoray inuu xogta ay soo gudbiyo emailkaygina waan raaciyay marka anigu dhibaato uma arko hadalkaygina haddaad dhegeysanaysa waxaa inuu controversial noqdo oo qofba dacal iska taago waa dee la doonaya waa buugo buugta way leeyihiin maantana wax laale wixii la daabacay suuqa xabad laguma hayo waa suuqa dib lagu kala iibsanayo berita waa la daabacaya saadaba waa daabacadiisu way socotaa marka inuu buugku caynkaa noqdo dunidoo dhan laga soo weydiinayo meel laga soo weydiinaya dee waxaan isleeyahay sharaf bay ii tahay oo ceeb maaha marka uma arko in dadka qaarkood waxa weeyaan ka hor yimaadaan ama diidaan ama dhaliilaan ceeb uma arko inkastoo aan u arko qofka aan qoraaga ahayn ama akhriyin ee aan ku sheegaya leeyahay waxba waraaq baa loo sawira waxaan arkaa qofkaas inuu dee qof gudcar gudaya yahay oo qalad ay ku tahay laakiin aanu dan kama lihin waxaan se ku qancaya hadday dadka qoraaga ahay bahda qoraalku cid walba waxbaa u hela ninka siyaasaddu ka faallooda ninka qoraagana qoraalku ka faallooda anigu qoraa hore ma ahayn oo iminkan buuggan qora hadday dadka qoraaga bahda qoraalku soo jeediyaan oo intay dhugtaan oo daalacdaan yidhahdaan war halkaas way dhaliilanta dee mushkiladba maaha waa nuskhadii ugu horreysayo nuskhada labaad baan ka saaraya oo saxaya oo toosinaya ma bedeleysa raaligelinta ma bixinaysa haddii aad garwaaqsatid khaladaad haddii aan ku qanco maaha mid olole iyo ashqaas siyaasiyiin ay ku sameeyaan haddii se aan ku qanco dadka qoraaga ah haddaan ku qanco aaraadooda waa waxaan ugu gudbiyeybo ma bedeleysaa mahe waaban ka codsaday waxaanay ku qorantahay afeeftayda haddaad soo heshaan emailkii wakaas igala soo xidhiyo waxaana sixi doonaa baan ku yidhi daabacada taa ku xiga haddii arrimahan madaxweynaha la xidhiidha oo dadku qodobka ay aada u hadal hayaan uu yahay oo laguu qanciyay inuu khalad yahay ma bedeleysaa dee anigu qalad uma arkaba taasuna maaha arrin qoraale waa arrin siyaasadeed taad ka hadlaysa marka waxaad leedahay dad qoraaga kama hadle waa arrin siyaasadeed qof siyaasad u dhigayo isagu duwayo ciwaj u ridaya qofka isaga u taala anigu madaxweynaha sharaf iyo amaan baan ahay madaxweyne silaamiyo dee muddo 5 sano abaad la soo shaqeynayso gacanyarihiisii koobaad aheed wasiirkii ugu awoodda badnaa la sheegi jiray inaad tahay dadka ku dhaliilaa waxay aan hal cad ka dhaqaaqa maantana waxay aan wuxuu raaciyay waxyaabo iftiiminaya يعني سيدنا بيجوا هؤلاء كانوا إن عفمات كم مدحونا وخش هذا. وحبك بس يجون يكون شيء. مدحونا أنا إسكت ديجان بتكسو شيء. إيه كذا. قضوا أنا أورند اللي هو كورفر يعني. واحد ترى هذا حسوس مدحونا هوصل عيبون. أيوه. لكن عفمات كأورند. بعضهم كقولنا يساعدك يكوتا. حسوس مدحونا. أيه هوصل عيبون. مدحونا أنا إسكت ديجان بتكسو شيء. ما لقى يابا. عم صورة قلمة هاي. إن سامين هذا مستقبلك. dhinaca siyaasadda gaar ahaan deegaamada aad ka soo wada jeedaan inay saameyn ku yeelato ma waxba dib ka warwari maayo calaf waxa la qoran isheegi maayaan dadka qaarra way taageer doon qaarra way diidi doonaan arrin khosaysa madaxweynaha yani fool xumo lagu sheegay iyo ceeb iyo cayna ma aha ninkii doonay inuu wax ka sheegay isaga taala laakiin se anagu madaxweynaha sharaf iyo amaanna waan horaan uga sheegay imkana waan ka sheegay buugaygana way ku qoranta aniga kule 8 meelood bay ku qoranta haddaad u timaado qodobka aad leedahay waxa weeye mar horaad ka dhaqaaqda dee anigu xilka in laga taga ceeb maaha xilka in laga taga ceeb maaha xilka anaa ka tegey madaxweyne silaanyana xilkan iyo kuu horeba uu ka tegey
xilkii ahaa iminka madaxweynaha joogay isaga iskaga tegey isagoo wasiirana isaga ciyaar iskaga tegey isagoo wasiirana isaga siyaad bare ka tegey marka dee xilka waa laga tagaa ceeb ma keento colaadna ma keento aniga madaxweyne boqol jeer oo baan is aragno aniguna colaad uma hayo isaguna colaad ima hayo muddo 7 sano oo madaxweyne Siiraan waddanka ka soo talinay 5 adaa wasiirka madaxtooyada ahaa 2 waxaa Maxamed Xaashi Cabdi 7 sano dadka qaar baa ku doodaya maadaama xusuusta madaxweynaha ay hoos u dhacday waxyaabihii waddanka ka dhacay madaxweyne Siiraan waxba kala ma socon waxaana waxa waday golihiisa wasiirada iyo hadba cidii ugu dhaweeyay waxay dadku leeyihiin eedayna in wax la musuq maasuqay hanti badan ay qaranka ka baxday adigu wax mas'uuliyada ma ku lahayd buugaanada akhriyay madaxweynuhu inuu musuq maasuq geysan oo nabca waliba buugay ku qoranta inuu musuq maasuq qofka ugu nacabaha waa inuu musuq maasuq geysan buugay ku qoranta taa aad leedahay madaxweynuhu ma talinayn adiga dambi kugu tahay ya kaad ka soo warinaysay madaxweynuhu isaga talin maxaan uga tagay hadaan talinayn aan joogo hadaan ugu talinayn aan joogo soo ka tagay waad balad isu fiirso hadalkaaga yani inuu iska hor imanay waad ka tagta markii aad isku khilaafteen yani musabixi iyo tartankii kulmiye anigi ba ka tagay hadii aan anigu ka talinayn aan joogo yani waaqع wuxuu ku siinaya aqliga saliimka wuxuu ku siinaya hadaan anigu haystay oo talinayay maxaan talin waay maxaan uga tagay madaxweynuhu isaga talinayo mar horena waan sheegay waxaan isku garan weynay taladii mustaqbalka markaasaan ku kala tagnay aniga kaliya ismay qabanne yani iskumay garan anagu waan isku garan weynay banaan qacda ku bana kala tagay madaxweynaha imka taliyo soo gudoomiyaha bay isku dhaxeen loo garnaqo waa guurta isugu yeedhay Soomaa hadaan talinay maxaa loo garnaqay cirro gudoomiyaha baarlamaanka waa la isku dhacayo miiska loo garna maxaa hadaan talinay maxaa loo garnaqay madaxweynuhu isaga talinay ilaa minidkii u dambeeyay qofkii caynka oranaya muu talinayna isaga u taala musabixi oo runtii dee ahaa markii madaxweyne Silaayad ka tageysay shakhsiga aad tiri anigu Silaayad dabadii ayaan isku khilaafnay madaxweynaha halka loo rabay qaranka buugga in badan baa laga filayay inaad ku soo hadal qaado laakiin inta badan kuma soo hadal qaadin meel baa laakiin ka jirta aad tiri wuxuu yiri iyadoo shir la fadhiyo laga arinsanayo mudaharaad biri dhacaya sidii laga yeelay baa la tala soo jeedi wuxuu yiri Cabdiraxmaan Cirro hala soo xidho bal arinta bulshada wada warta de wali waxa ka muuqatay inaad buugga war u hayno musabix meelo badan ku qoray meelo ku qoran yahay de aaraadiis iyo taladiis iyo ama ha qaldanaato ama saacatee iyo talaabooyinkiisa uu qaaday wixii aan anagu ku kolanay xilliga ahaa ayaan ku qoray ma sax way had misqalad bay isaga weydiinaysa laakiin anigu dhacdan ka soo wariyay uga jeedadu kala ha ma garanaya ma ku yiri marka uga jeedada doonaysa isaga weydii hadda la musabixi kuma soo hadal qaadis hadal ku dhufateen waan ku soo hadal qaadayo waan ku qoray meelo badan oo ku qoray hadii buugga inta ku dhaafno maanta in sanad ku dhow baa laga joogaa xilligii musabixi Cabdi oo wadanka loo doortay musabixina si aad ba isaga soo horjeeday muuse sanadkaas sidoo wuxuu wado sidaa u aragtaa حزب معارضة ما كتر سنة نقول كسر شيء هذا ميان اسكو حزب مني حزب معارضكو يو هداني محافظ كسر شيء ده ولا اسكو دار لها وكذا أنا أقول كسر شيء ده حزب جا طلعها هي ده كمتشرو حزب جا لا طلعها هي ده دليلها يا لكن سي وقت يوري ولي ضدكو إن بدن وحيد وقت يجيبها ولي ده بلعناقل مركا مصبي حد ومدحوينه شكل كمتشرو سواء ما أنت طلعها هي قال ده صح ما يعني كيمان يا نو لا دليل توانو لا رد عليه لا يما شكي كما تاغن لكن سيمك دب arrinta buugeen sugni harta siyaasaddu waa markaa hore markii hore imaadano ka wareysanay haddana mid kale si raacsan dhinaca siyaasadda dee xisbiga wadani uu guuldareystay doorashadii la soo dhaafay doorashada ban uu soo diyaarinaya suurtagal ma tahay in aad gudoomiyaha xisbiga ama musharaxa madaxweyne xisbiga aad u tartanto horta أولاً هذا الكورنا يو قول درستي وران وجهه يو ما نقول درستي كرسي قاعدوي هم لا ده هذين الكرسي قاعدنا بسورته ويدي لكن سما نقول درستي وكان حسب يقولوا طالعنا وشقينا ويسكو حدينا كالنتي سيبك كتير تعاد كهذا شيء مستقبل كده لما قاعدينه قدومية شو مشرح بنوها هايو
kamuu degino kamaa naan tashano shir weyne lama qabano yani wax iminkaan ka faalloodo waqti aan la gaadhin ma jiro rag kaadirahoo odayaalahoo aanu asxaabnahay oo isku qanacsannahay oo aanaan iminka balaayo kala wadinna way joogaan saaxada ugu dambeyn xirsi cali xaaji xasan wasiirkii madaxtooyada uu soo noqday jaranjaro dheer buu soo maray hadda waa hogaamiyaha xisbiga wadani mustaqbalka ma doonaysaa inaad waddanka madaxweyne ka noqoto maxaan siyaasadda ka soo doonay makhaar furto haddaanan doonaynin inaan siyaasadda meel sare ka gaadho buuggaygana way ku qorantay inaan himilada higsanayo noocaas haddii ilaahay subxana wataala ay suurtogeliyo himiladaa waan leehay laakiin sida waa haya cala salaaya haddeeda goortay ku habboonaato hadday suurto gasho alxamdulillah haddii kalena waa waxaan sabada laga qorin marka mushkilad ma hogaamiye xirsi cali xaaji xasan aad iyo aad baad mahadsan tahay waanu kaaga mahad celinaynaa waraysigan gaarkaa inaadna siiso daawadayaal intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa waraysigaasi dhinaca buugga uu qoray hogaamiye xirsi cali xaaji xasan ku saabsan ee miyiga ilaa madaxtooyada dhinaca kamaradu waa injineer siidow iyo weliba cabdisalaan iyo weliba maxamed tan iyo kulan dambe nabadgelyo amaan allah